Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada horumari madbaqaaga janal. Asxaabay waan idin salaamayaa meel kastood kala joogtaan iyo xilli kastoo ay idin tahay. Waqtigu ha idin wacnaado insha Allah biidmillaahi kariim. Waxaan rajeynayaa inaad khayr badan ku sugan tihiin. Adduun hawl lagama waaye wixii hawl iyo dhib jirtana Allah inoo yassiro biidmillaahi kariim. Asxaabta hore u joogtay iyo asxaabta cusub intaba waxaan leeyahay kusoo dhawaada qalbi faraxsan iyo gacmo furan channelkiina kusoo dhawaada horumari madbaqaaga. Maanta waxaan sameynaa insha Allah digaag aan inaba caadi ahayn. Waxaynu u sameyn doonaa insha Allah laba dhiseen ama laba qaab oo kala yar duwan. Insha Allah biidmillaahi kariim inaga qaadan maayo waqti badan intaa waan boobsiin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Idinkana waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan aadna uu idin cajabin doono. Bismillaah. Asxaabi halkan waxaan ku haysanaa waslad digaaga. Asalna waxaanu haysanaa laba wasladood oo kiilo wax la isku ahaa. Waxaan doonayaa laba qof ku kala cashaysiyo laba kala duwan aan ka dhigo. Sidaad arkaysaanba wasladan waxaan u kala jaray laba jeex oo sida balaaran aan u jaray yacni sida khafiifka ah. Waxaan soo qaaday warqadan kartoonkan ay ku jirta. Warqadan waxaa la dhahaa warqad subda ama warqada aynu cuntada u dhigno weeyaan. Asxaabay labadii jeex digaag ahaa ayaan soo saaray. Waan ku laabay sidaad aragtaanba. Kadibna waxaan soo qaadayaa dubbihii oo waan garaacayaa. Asxaabay warqadan waxay noo faa'iideynaysaa faa'iidooyin badan. Awalan waxay noo faa'iideynaysaa inaanu inaga jikoogo in hilibku aynu garaacaynaa. Taaniyan waxay noo faa'iideynaysaa inuu khafiifo oo soo islaysa saas oo kale inoo noqdo. ثالثاً waxay noo faa'iideynaysaa inuu hilibka ama digaaga ay yacni waxay ka dulduulay qoyaanka aanu nagu soo dulduulin. Digaagii wuu inoo garaacmay maasha Allah. Sidii aan doonaynay buu inoo noqday si khafiif oo islays ah. Garaacistan waxay kale faa'iideynaysaa inuu digaagan hore inoogu bislaado maqliga markaan ku sameysanayno. Halkan asxaabay waxaan ku wadaa xawaashiyadii. Xawaashka qof walba waa xaween ikhtiyaarkiisa iyo wixii isagu uu xawaash ahaan u jecel yahay. Anu imka halkan waxaan ku hayaa milix, halkaasna waxaan ku hayaa filfil, halkaasna waxaan ku hayaa sinjibiil, halkaana waxaan ku hayaa khamuun iyo kurkum iyo samaaq iyo toon bowdhara. Toonta bowdharka qofkii aan hayn toonteena caadiga ah iyo tumayada ka fiican. Halkan waxaan ku soo daray saliid olive in yar oo dhibiq ah. Cuntada saliida badan ma fiicno. Halkan waxaan ku haysanay tibsi rumaan iyo soya sauce kan tibsi rumaankan ku darayaa in yar. Haddii aadan haynina liin dhanaan yar ama khal yar baa kaaga filan. Asxaabay intaas ayaan ku masaxayaa oo saad aragtaanba oo aan isku gaargaarsiinayaa yacni digaagii. Insha Allah biidmillaahi kariim waxaan rajeynayaa inuu fuduudkiisa yacni samayntiisu ay noo fududaan doonto biidmillaah. Asxaabay waxaan ku soo daray xabuub yar oo shiiday ama aan soo xoqay. Xabuubtan waxay faa'iideynaysaa insha Allah in ay ii siiso qoyaan oo inta isagu soo tufo hilibku soo tufo ama digaagu soo tufo iyo inta xabuubtan ku daray way bislaynaysaa insha Allah waayo waan garaacay oo wuu jilicsan yahay. Asxaabay halkan maqligii in yaro saliidaan ku shubay saad arkisaynba dabadna waan yaa labadii wasladoodna soo saaray. waa kun way inoo solantay maasha Allah si fiican ayuu inoogu solmay. Markuu saa inoogu solmayna waa anigan waxa soo qaaday bilaarkii lagu ridayay ama bilaarkii lagu cunayay ama bilaar maxaa la dhahaa saxan taqdiim ayaan ku soo riday. Markaan ku soo riday insha Allah saas buu daray u yahay uu qalalan yahay. Kulli caawa intan bariis baan raacin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxoogaa khudaarna waan ku dari doonaa. Asxaabay bilaarkii markaan ku soo riday waxaan ku soo darayaa halkan barbarooniga casaanka ah oo soo shawxiyay. Soo kale kii akhtarka ah waan soo shawxiyay. Shawxin yacni waan soo yar shiilay yacni in yar maqliga intaan saliid olive ku dhibqiyay wax yar oo beenbeena ayaan dabadna ku soo shawxiyay. Si fiican oo u shiili kartaa haddaad doonto saliida loo baahnayna waabad iska din kartaayo maqligood diiran baad ku yar shawxinaysaa si uu kugu yara jilco. Basal ayaan yana soo shawxiyay saad aragtaan. Khudaartaas iyo digaagaas iyo bariisa waxa soo raacda waa liin dhanaan. Qofkii soos jecel wuu u samaysan karaa soos. Qofkii ketchup iyo waxaas isticmaala wuu iskaga isticmaali karaa. qofkii kalena intan way ku filan tahay si wanaagsan
khudaarta waad bedeli kartaan wixii baradho iyo waxyaabo kale ku bedelan kartaan iyo bidinjaan iyo waxyaabo kale ood ku bedelan kartaan calaa ikhtiyaar asxaabay saas ayuu u jilicsan yahay maasha allah kaas halkaasuu ku dhammaaday kii kale waa kan wasladii kale inoo taalay weeyaan asxaabay tan ma kala jari doono laakiin halkaasaan ka dilaacin doonaa gudaha waxaan doonayaa inay ii hulanto oo aan meel aan wax gelin karo aan ka sameeyo waxaan ka ilaalinayaa inay halkaa aan ka jeexay mooyane meelo kale ka dilaacdo gudaha iyo dhabarka iyo meel kasta meesha hilibka yara kuusanana waa yara sarsarayaa si xawaashka u galo asxaabay soy soos ayaan kusoo dhibqiyey amba in yaro soy soos wax mulqaacad yar leeg kadib markaan intaas ku gaargaarsiinay in yaroo xawaashi ah xawaashida intii aynu haysanin weyaan in yaroo intaasoo kaloon isku soo dardaray intaa markaan isku si fiican aan u marmariyo aan dhinac kasta aan kasoo mariyo insha allah haddii la yar dhigana aad bay u fiican tahay oo waxoogaa u yaro daboolnaado asxaabay waxaa halka aan ku dhigay waxa weeyaan cheese-ta nooca doontida ayaad isticmaali kartaa jubna mozzarella aad isticmaali kartaa shaydar baad isticmaali kartaa jubna muthallath baad isticmaali kartaa ay jubna aad haysatid waxa kale ku xigana wuxuu ahaa basal yar iyo barbaroonigii yaraa oo shiilnaa dabadna waxaan ku kordhiyay haddana cheese-ta ayaan kasoo sokaysiiyey saas ayaan labadii afka isugu soo qabtay labadeedii dhinac sidii markii hore ay ahayd ayna kala goonayn bay usoo ekaatay asxaabay findhicilkan ayaan soo qaatay ilaa 8 xabo oo findhicila ayaan halkaa ku taagay 8 xabo kulli ma wada geli doonaan laakiin qaar baa markaan degeli israato jabi doono qaar baa iska jilicsano irbada iyo dunta kana ayaa dhaama waayo irbada daxal inay yeelataa laga rabaa bir oo waxaa dhaanta kana dhaama asxaabay wanigaas findhicilkii kusoo halhaluuqay sida dharka markaynu dee saa u gelinayno irbadoo kale ayaan isugu soo qabtay saad aragtaanba saas markii aan ugu soo halhaluuqayna insha allah wakaasoo afartiisii koonaba wuu ishaystaa meelna kama daloolo waxaan ku yar shubi doonaa dusha ka marin doonaa in saliid oliva ama saliid saytuuna ayaa dusha ka marin doonaa ciddii rabtaa subde iyo ama saliid caadiya ama subag saafiya wixii la doono ayaa dusha laga marin karaa sida kaa xagga kalena waxaa dabka inoo saaran asxaabay maqliga waxaa aan ku shubayaa in yaro isoo kale saliid oliva qofkan hayn waxyaabo kale la dee saliid caadigaaba wuu marin karaa wuu ku ridi karaa waxaan doonayaa inuu 4 koonaba inooga casaado insha allah biidnillaahi kariim asxaabay markuu koonaha kasoo casaaday koonaha kalen u rogay saad aragtaanba waxaanan koonayaashka yarare hareerahana waan kaga qaban doonaa haddii alla yidhaahdo 4 koonaba inuu ka casaado si fiican uga casaado ayaan rabaa casaankan uu inoo casaaday yacni kama dhigna inuu bisil yahay asxaabay halkan warqadii ayaan soo qaaday warqad subda waxaan soo qaaday digaaggii aynu casaynay qoryihiisiina way ku jiraan oo waa kuwaas halka kasoo taagtaagano sidii unbay ugu jiraan waxaan sameynayaa inaan warqadan 4 koono kaga soo laabo laabitaankan warqadan 4 koono kaga soo laabaya waxay inoo faa'iideynayaan in ay inooga celiso aluminiumta dhididkeeda maadaama aluminiumta waxyaabo naxaasi wax ku jiraan aluminiumta dhididkeeda ayay inooga celinaysaa sidoo kale wayna inoo bislaynaysaa oo si wanaagsan ayay inoogu huurinaysaa digaageeni ama de hilib kolba waxay aan gelisay kalluun xataa asxaabay marka saas tan ugu laabay waxaan soo qaadayaa insha allah aluminiumtii baa ayaan dadna iyadana 4 koonaba kaga laabayaa 4 koone si fiican markaan ugaga laabo waxaan sameynayaa insha allah biidnillaahi kariim ofinkii isagana waa inoo shidan yahay mar dhowdaan shiday darajada xaraarada ofinka waxaan ka dhigay 200 25 ilaa 30 daqiiqo taqriiban uu inoogu jiri doonaa insha allah biidnillaahi kariim intaana wuu inoogu bislaanayaa waanu inoo casaaso qurux badan buu inoogu casaa waad arkayseen allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa ali sayidina maxamed waxaan sameynaynaa kale insha allah sidaa markaan uu inoo yahay xataa gargaraha caadiga aynu dhuxush ku shidano shabagii daawaha laxooxda la saarayay badaad dul dhigto si fiican ayuu kuugu bislaanayaa oo aad intaas oo daqiiqadood u dayso
saas ayuu ofinka aynu ku geyneynaa. Bismillah, halkana waxaa inoo yaala distidan oo aan olive yar ku shubay, sidoo kalena waxaan ku shubay basal yar oon jarjaray, basashaasoo shiidan ama xoqano ay kasii fiicneed inay jarjaran tahay. Asxaabi waxaan sameynayaa soos yar, sooska waxaan ku dul dari doonaa digaagan ofinka inoogu jira. Basashii markay shawaxday waxaan kusoo daray xabuub yaroo shiidan. Xabuubta way cas tahay, qof akhtar doonayana ama dee soos cad doonayana tii saladka ku dari karaa. Halkan waxaan ku arkaynay ku haynay baashii warango, muqaacada yar warangada ah yani muqaacad caadi weyn waa tii cuntada laakiin way dhiman tahay, yani ma buuxdo, xoog ma soo buuxin. Sooska qof kaliyaan u sameynayay. Markaas biyo rubuc kooba ayaan ku shubay si ay u qasanto. Dabeetana basashii iyo xabuubtii iyo saliid yarada isku shiilantay ayaan ku daray. Sidaad aragtaanba waa isku walaaqay. Kadibna waxaan kusoo daray biyo kale. Biyaha laakiin waan ka yareynayaa, markasta koob biyo ah baan haystay. Koobka biyaha waa koobkii raashaha maaha koob weyn. Dabeetana indhaha ayaad kala soconaysaa. Marka sooska waxaan doonaya soos yara jilicsan inuu ahaado, soos adag ma noqon karaba, waayo nash uu leeyahay. Saas ayuu inagu karayaa maasha Allah. Saa uu yahay weliba waan ka jilcin doonaa insha Allah. Hadhow in yaroo biyaan ku daray, laakiin marka xawaashidii aan keeno filfil yar iyo qamoon yar iyo kurkum yar iyo toontii iyo ismaaq yar weeyaan intana. Markaan intaa ku daro insha Allah biyo yar baan ku daray saad aragtaan. Kadibna waan walaaqi, markaan walaaqana insha Allah bismillahi kariim aanu yar dabooli haynoo yar karo. Markuu karayna waa kan maasha Allah si wanaagsan ayuu inoo yahay. Milix yar baan ku daray sidaad arkaysaan. Sooskii waa inoo jilicsan yahay, qawaamka intaanu rabnay weeyaan maasha Allah. urtiisa iyo kamkamka kasoo baxaya. Waxaan sameynaa markaas sonkor yar baan ku dareynaa, sonkor baroon ama baroon sonkor bunni kolba si loo yaqaan. Sooska saas buu inoogu dhan yahay asxaabey. Hadda waxaa inoo soo booday oo inoo soo baxay insha Allah digaageeni maasha Allah tabaaraka raxmaan. Si wanaagsan ayuu inoogu soo bislaaday. Halkaasuu uumigiisu kaa qaadayaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad tijaabin doontaan, aad ku cashaysin doontaan faamiliyada intii Ilaahay ka dhigo. Kan xataa qadooyinka kaleba waad raacin kartaan, qadooyinka iyo markaad casuumada leedihiin iyo 5 mir 6 mir 10 mir yani siiniyad weyn baad iyo hal siiniyad weyn waad ku guri kartaan intaad dhigtaan warqada. dabeetna aad iyagana taxdaan, dabeetna warqad kale dusha ka saartaan, aluminiumtana jak ku siisaan maasha Allah. asxaabi digaageeni oo si fiican u qurux badan oo dahabiya oo aad arkayseen. Bahalihiina waan ka guray, maxay sooskiina waan ku soo dul shubay maasha Allah tabaaraka raxmaan. bahalkii wuxuu ahaa findhicilkeena tiradii aan galiyay waan kaga guray. insha Allah bismillahi kariim waxaan rajeynayaa inuu ina anfacay oo aynu ka wada helnay insha Allah. saas buu u egyahay qurux maasha Allah. udgoon ma tiraahdid, waxaan ku wari dhadhan ha soo qaadin. waxaan ku wari kaale arag yaroo kamsira oo la jarjaray dushaad kaga yaacin kartaan, qurux badan buu u tarayaa. khubsna waa lagu cunayay waad arkayseen. asxaabi saas ayuu casharkii inoogu dhan yahay maasha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.